halka naga daawanaysan waa SNN oo idinkaga imaanaya labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul alaaba waxaad nagala kulantaan ama naga daawataan aabakeena kala duwan ee kala ah Roku Boxka, Amazon Fire TV iyo telefoonada gacanta Android iyo iPhone-ka oo aan aabab ku leenahay. sidoo kale waxaan naga daawan kartaan website-keena somalinomad.network.com. kusoo dhawow waxaa maanta marti noo ah Dool Mahadsalaad. Dool kusoo dhawow SNN TV. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هاد بدل ما سنتها محمد ورديرة هذه إياه TV جا SNN TV هذه هاد بندين سلامة يا وحنا كل هالكن كسلامة يا دمان مدة الصوماليات ومال البنجة دعوانا يسوع سلامة الإسلام كان كل سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان وشكتها ما جاي جوا Dool Mahadsalaad. حد جنا هاي State of Minnesota خاصة ما حد جنا هاي St. Cloud. ما شاء الله. Dool أنت waxaan jeclaan lahayn dad badan baan daawanaya oo ku yaqaana iyo dad ku aqoonba waxaan rabnaa bal in maanta inaad iska barto qofka aan Dool aqoonin Dool waa kuma waa su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan saad sheegtay magacaygu waa Dool Mahadsalaad degan State of Minnesota khaasatan St. Cloud Minnesota kasoo jeeda State of Jubaland State of Somalia ku dhashay magaalada Dobley kusoo barbaaray Soomaaliya, Kenya iyo Mareykankaba nolosheeda intaasaan ku qaatay. ما شاء الله. Dool waxaan ugu maqaalaha inaad u sharaxan tahay golaha shacbiga Soomaaliyeed ee soo socda. Arrintan maxaa ka jira? صح arrintaasi 2021ka duu ilaahay yiraahdo waxaan u taaganahay kursiga baarlamaanka heer federaal kasoo bixi doono degmada Afmadow Jubaland markii ugu horeysana ma ahan inaan maartay kursigan u istaago 2016 baan mar u istaagay meel fiican baan ka gaaray tartankii isaga ahaa dad badan ay la tartamayay marka sababtaas ay u kaliftay haddana bal inaan mar labaad isku sharaxo kursiga federaalka Soomaaliya. Dool alaaba wasaad la socoto waqtiyadu ay soo marka ay soo dhawaadaan doorashooyinku dad badan baa is sharaxa dadka Soomaalidu waxaad moodaa hadda inay baraarugeen oo aysan cid walba hadda iska dooran maxaad ku soo kordhinaysaa Jubaland maxaad ku soo kordhinaysaa dadka aad doorashada ka rabto waxse ma ku soo kordhiso hadda ka hor in qofka la weydiiyo waxa horta intaada kursigaaga iyo hamigaaga siyaasadeed intaada bal aad ku dhawaaqin bal meesha aad ka soo jeedo maxaad u geystay waxa yiraahdo macnaha qofku waa inuu wax u geystaa way anigu deegaankaas waan ka soo jeedaa asaan ka hore ku sheegay waan ku dhashay deegaan aan aad u kala garanayo Afmadow ilaa iyo mataqaanaa Qooqaani taabto xayo ku darno Dobley Diif deegaanada aan ka soo jeedo rabo in laga soo doorto horta waa halkaas in badan baa hadda qurbaha jooga 15 sano almost qurbaha hadda jooga deegaankaas aanu istaago kolley ilaa waxaan malaynayaa 10 sano u dambeysaba aad baan maartay aan wax ugu qabanay waxyaalaha aan u qabanayna waxaa kamid ah sida hadda Afmadow ceelka laga qoday kale guddi aniga ku jiro ay ceelkaasi aasaasay masaajidkii la dayactiray oo macnaha isaga dhismihiisa socday oo markii dambana si fiican aan uga qayb qaadanay guddigii baan ku jira Qooqaani aad ogtahay ceel baa laga qoday isbitaal baa hadda socda dadka qabanqaabadiisa maartay wadaan ku jira oo u istaagay Afmadow magaalada Afmadow la yiraahdo aan ku soo laabtay iskuul baa jiray isagoo naftigiisa dayactir u baahnaa waan dayactiray dadkii maartay maamulaha ahaa ilaa hadda uu jooga isagiiba hadda jooga oo si fiican baan uga qayb qaatay in iskuulkii Ilaahay waa u guulayay inaan maartay iskuulkii isagana wax ka qabto marka wax qabadku qofku inuu deegaankiisa wax gashado amaan ma ahan maartay waa wax waajib ah qofka bini'aadanka laga rabo inuu deegaanka uu ka soo jeedo wax u qabto anigana kulli waxaan is dhigi karaa waxaan u qaban karay shakhsi ahaantayda waan u qabtay laakiin wax kale ayaa ii dhiman oo fara badan Dool sidaan aan la socono nin ganacsada ah oo dhalinyaro ah oo State of Minnesota dhalinyarada aad uga muuqata ayaad ka mid tahay sidaan la socono state laftiisa hawlaad ka qabatay State of Minnesota
bal si aan xoogaa yar kuusii barano maxaa horta Minnesota ka qabataa maxaad kusoo kordhisay bulshada reer Minnesota wargaro waad ku mahadsantahay su'aasha ay weydiisay walaalo anigu saad ogtahay 2006 baan Mareykanka imid sanad markaan joogo hal sano 1 year almost baan dhihi karaa baan waxaan aasaasay companygii baan muddo adigu 2 sano 3 sano aan contractiyo u raadinay ogtahay state-ko inta badan immigrant-igu home care iyo transportation ay u badan yihiin businessada opportunity badan baa yaala hadda state of Minnesota on all state-da kala qaasatan company-ga aan furay waqtigii isaga ah maanta 12 sano furan yahay dadka u shaqeeya maanta company-ga waa almost over 65 people by employee ayaa company-ga u shaqeysaa marka qof shaqo abuur baan ahay 2 mar baa journalka Minnesota lagu soo qoray Sankaloor waliba qaasatan meeshaan deganay Sankaloor Times oo shaqo abuurkeygii shaqada aan qabtay iyo maaragtay lagu sharaxay maaragtay qof shaqo abuur oo firfircoon oo meesha uu joogo inuu wax ka qabtaa ayaan shakhsiyan anigu meeqa lagu qiyaas hadda shaqaalaha ku shaqeeya company-ga adiga overall hadda waa 65 qof baa ii joogta oo shaqaalaha employee oo W2 qaarkood ku jiraan most of them 95% waa employee saasha waxaan ku weydiinaya waxa weeye waxa u socotaa Soomaaliya oo aad rabtaa xildhibaan inaad ka noqoto ma ogtahay salary-ga laga qaato xildhibaanka Soomaaliya inay $3,000 tahay maxaa ka doonaysaa adoo 65 qof shaqaalaha ku joogaan inaad Soomaaliya u shaqo tagto oo aad shaqo u raadsato ma dhaqaalaad u socotaa ma magac raadis baa tahay ma dad dhiban oo wax loo qabanayo aad wax u qabanaysaa dad baa raba inay fahmaan bal waxa hadda Soomaaliya ku kalifa in la ogaado waana su'aal loo baahan yahay qof halkan jooga oo American Dream ku nool maaragtay ganacsada ah degan magaalada guryo ku leh maanta inaad $3,000 oo shaqo ah waliba riski kala naxbaarsan oo Soomaaliya waa iska garan kartaa xaaladeeda inuu aado waxa uu kalifay deegaanka aan ka soo jeeday qaasatan magaalada Afmadow la yiraahdo degmooyinka kale way ka liidataa qofkan waxa fiican intaad adduunka nooshahay oo wax yar inaad legacy ka tagto inaad wax aad ka tagto waxa aniga isbedel ahaan shakhsi ahaanteeda in deegaankaas aan wax u qabto oo change aan sameeyo wixii aan gacanta ku hay intaan ka dhaqaaqo aan sameeyo deegaankii aan ka soo jeeday aniga aan ka soo jeeday aabbahay ka soo jeeday awgiis ka soo jeeday inaan wax u qabto oo meesha lama huraanka ah oo berito ilmahayga ay tagi doonaan ama ay wax ka qaban doonaan waa halkaas marka hawshan aan gacanta ku hayo waxa aan u drop gareynayo waa dhibaato culus oo deegaankaasi ka muuqata ayaan rabaa inaan maaragtay insha Allah hadduu Ilaahay ugu guuleeyo inaan change ka sameeyo maaha baahi adigu aad u qabtid maahan waxaad rabtaa adigu waad fiican tahay nolol baad haysataa balse waxaad is leedahay dadkaas Soomaaliyeed oo deegaanka ka soo jeedo oo dhulka adigu ka soo jeeda inuu baabaasan yahay rabtaa wax ka bedesho saas absolutely waxa jira dad xildhibaanaha adiga ka horeeyay maxay u qabteen maxaad ku dhaliilaysaa oo adigu ma taqaana qofku waxa la rabaa 4 sanaad niman joogeen deegaanka laga soo doortay waxaadna leedahay 4 sano waxa ma aysan qaban nimankaas iyo gabdhahaasba maxamed horta saad wada ognahayba xildhibaanadu horta golaha shacbiga waa 225 waa gartay waa 275 meelo badan baa dadka laga soo doortaa anigu kale waxaan focus gareynayaa dadka Jubbaland laga soo doorto qaasatan magaalada Afmadow la yiraahdo xildhibaanaha hadda golaha shacabka noogu jira oo la soo doorto 4 sanana gabagaba ay ka tahay ka dhamaad qaar badan oo jira hadda jira Afmadow iyo Doobleyba aan arkinba aan soo caga dhiganinba oo nagu matalay wali golaha shacabka federaalka masiibooyinka nagu dhacay baa waxa kamid ah marka waxaan dhihi karaa anigu kulay waxa ku kalifay ma dad aqoon siyaasadeed lahayn ba ma dad experience aan lahayn ba ma dad deegaankiiba dee macnaha aan shacabkii doortay aan ogeynba inayna matalaynin ba xamar bay tageen kulay waxa iska noqotaba dee xamartii naftigeedaba nin hadda maaragtay Minnesota intuu ka tagay New York iska dawo kale oo New York hadduu ka shaqaystaba shaqadiisa New York kaliya ku egtahay qofkii meesha laga soo doortay deegaanka laga soo doortay warba kama hayaanba qaar badan hadda xildhibaanaha waxaa jira deegaanada ma aan kaliya meesha la yiraahdo Afmadow taabto qooqaani xayo muxuu ahaa ii sheegay Doobley diif ma aha
dhul badan oo reer miyiga guuraa baa jira oo dadku ay degan yihiin bulshada ku nool populationka almost ku laba jibaarmay ama la egba oo baadiyi jooga sida hadda jiira calbule kombolosh sariiraha ilaa iyo mataqaanaa magar meesha la yiraahdo magaceeda ii sheeg welmaro oo maaragtay afadu dhinaca ka ah dadaan garanayn baa jira magacaada hataan maqal magaciiba ana maqlin haddana xildhibaan ah oo nagu bedelay marka dhibaatooyinka nagu dhacay baa ka mid ah oon rabaa anigu inaan wax ka bedelo insha allah dad badan baa waxay ku xamanayaan dadkii Jubbaland laga soo doortay inaysan deegaankaba u dhalanin oo ay ka yimaadeen meelo kale arrintaa maxaa ka leedahay xildhibaanada hadda jira kuwa hadda jooga oo Jubbaland shakhsigu hadduu Soomaali yahay adiga aan garanay meesha ka timid maxamedow aniga isku meel baan ka mid magaalada Dhoble baan ka timid deegaanka Jubbaland baan u dhalatay horta mar waan iloway marka hore aad baan ugu faraxsanahay TV nin deegaanka Jubbaland ka soo jeedo inuu maanta i wareysto adigana anna sharaf bay tahay adigana xildhibaanka ku matali lahaa ayaan macnaha aad maanta nasiib u yeelatay inaad wareysato marka nin waa run dad badan baa su'aalaha isweydiiyo laakiin anu shakhsi ahaantay opinionka this is my opinion aniga shakhsi ahaantayda waxaan aaminsanahay qof walba oo Soomaali ah meeshu ka imaadeen ama Ethiopia ku dhashay ama Kenya ku dhashay inuu xaq u leeyahay meeshu ku istaagi karo laakiin wax qabad baan ka rabnaa wax qabadkii loo dhiibtay ayuu dadkaas u gabeen anu taas ma ku dhaliilay gabagabadii baan waxaan soo gaarnay barnaamijkeena wareysiga aanu musharax dool mahad salaad aan ku wareysanaynay ayaa soo gaarnay dolo maxaad ka codsanaysaa dadka aad matali doonto inay maanta ka maqlaan wareysigan aad fursad u heshay بسم الله ورتا هذه أد بعض محسنتها محمد هذه إي تي في جابا أد بعض وفرح سنة ما أنت معرفتين هذا ورئيس كان إجا قاده دتك الصومالي ذرت سان هري وشجابا مر لبعضنا سلامي مالو البلدون ذيك الشجابا أنا مشرح معنا كرسي برلمان كانوا ترتمي هدو إلهي وقولي حيالها إيهوريا لا فيجن كانوا قفل بنا فيجن بولاي أنا واحد بدله أنا واحد وقفت الدجان كي جان ربا سامو ذا وقت نهبة سكول ذي برشادي نوع النقطة ودوينكي بيه عافماتكي اسبتال ذي قوبي اسبتال وكان قوة ترين عدد كلو ترين قرية ومنطقة إيش شق أبور لو قسمه ديجان كي أنا أنكسر شيء دمله حيالها سبا أنا كو إيه حرت أنا dadka u qabto wax muuqdo afarta sano jooga haduu Ilaahay u guulay kursiga wax muuqdaan raba inaan uga tago meesha ayada oo dadka iga dambeeya ee dhan hebel waxay waxa uu qabtay which ay jirin hadda wax dadkii wax u qabtay gabagabadii maxaad uga dardaarmaysaa dhammaan Soomaali weyn oo ku daawanaysa runtii dad badan oo Soomaali baa laga yaabaa inay isu sharaxaan position-kan sidaad ogtahayna badana aad baa la isu beddelaa arrinta position-kan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maxaad uga tagaysaa waxaan uga tagayaa ummadda Soomaaliyeed xasatan kule anuu meel baan foxkayga u jira deegaanka aan ka soo jeedo qaar badan oo ay arkay iyo qaar badan oo ay arkinba waxaan ka codsanayaa kursigaasi inay ila garab istaagaan in kursigaasi hadduu Ilaahay idmo oo calaf Ilaahay igu qoro in kursigaasi wax badan deegaanka aan u qabanayo ayagana kalsoonidooda ay siiyaan ayaan maartay kaasina wuxuu ahaa dool mahad salaad oo aan ku wareysanayna studio-heena magaalada Minneapolis iyo St. Paul waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah iyo amaana kulanti wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh ma santahay dool thanks for having me